xilli guud ahaan gobolada dalka ay ka soconayaan dagaalo lagu ciribtirayo argagixisada al-shabaab ayaa si loo dardargeliyo dagaalkaasi. wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur waxa uu booqasho ku tagay taliska ciidanka xoogga dalka qaybta 43aad ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo. wasiirka ayaa halkaasi kula kulmay saraakiisha ciidanka iyo ciidamada kala duwan ee xoogga dalka. taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Cali Maxamed Maxamuud oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa kula dardaarmay ciidanka xoogga dalka gaar ahaan qaybta 43aad inay u diyaar garoowaan howlgalka dhana argagixisada al-shabaab si looga xoreeyo deegaanada iyo degmooyinka ay gacanta ku hayaan guud ahaan dowlad goboleedka Jubbaland. waxa ay sharafa oo rayn ah oo guddigan aan ku faraxsanahay inay maanta la joogaan wasiir difaaci iyo taliye xoogga dalka. aad bay sharaf inoogu tahay inay ugu soo booqdaan taliska qaybta 43aad jaamacadda. waxaynu ognahay howlgallada lagu jiraa, saakaynu ka hadalnay, shalabaynu ka hadalnay, sida aynu nahay si ka fiican oo ka roon yaa laynaga rabaa. waxaa la rabaa deegaanada khawaariijta laga xoreeyey laga sii xoreynayo inuu la jaan qaadno. war ballantaasoo maynaan qaadin kaagayno soo inaanu ka xoreyno maaha deegaanka ay afduubeen khawaariijtu. beekam miyaynu u baahannahay haddaynu ka haysanno? toori iyo waran baa ooyadeen gaalo ku xoreyn jir kaga xoreeyeen waddanka. soo inaanu dariiqii marno maaha? innagoo dacas wadanna soo inaanu dhifayska gallo maaha? mushaahar ma qaadannaa? raashin ma qaadannaa? taariikhda ma gelaynaa? baahi kale miyayna haysaa? baahida ayna haysaa idiin sheegi. baahidana haysaa waxa weeye inaynu khawaariijta ka saarno deegaanada u afduuban, cadowga xalaalaystay maalka iyo dhiigga dadkeenna, een gabadha dhaafayn, een odayga dhaafayn, een cunuga dhaafayn. war kuwaa inaynu ka xorayno dadkeenna sow waajib muqaddasa ma aha. wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa ciidamada waxa uu kula dardaarmay in haatan wixii ka dambeeya si toos ah ay ugu diyaar garoowaan xoreynta deegaanada ay gacanta ku hayaan argagixisada al-shabaab. dad badan oo laga sheekaynayo oo halgankiisa la soo galay dalkan lagu xoreynayay agabkay heesteen iyo agabka lagula diriraayo dalkan dadkiisa iyagoo diyaarad lagula diriraayo ayay fallaar inay ku xoreeyaan ka shaqaynayeen. iyagoo xabsiyada lagu wada guraayo ayay habeenadii intay guryahooda ka soo dhaxaan qaarkood waraaqaha dhiqi jireen sooma si ummadan ay u gaarsiiyaan meesha ay maaragtaa xorriyadda iyo dhadhanka iyo faa'iidada ay leedahay sooma. maanta dalkan cadow naf aan badbaadinayn, maal aan badbaadinayn, cirdi aan badbaadinayn, wax ma aragta bani aadan ama xayawaan nool midna aanan badbaadinaynin ayaa dalkan ku habsaday. kaas halgankiisi waay maxaa ku darsatay waxaad isweydiiyohay. qaybta waxaa laga rabaa in qof allaala qofkii qori qaadi kara oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkan ka tirsan uu ku jiro inuusan magaalo ku hooyan, furmaha la wada aado, cadowga la ugaarsado, 2-3-10 inta loo socon kara loo soco. waqti adag inaad gelisaan ayaa lidinka rabaa. saraakiishiina waa soo wada hadalnay, waxa isugu keena dhiman ma jiro, waxaan sugnaaba waa ficil. ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddiisa qofka aanan asaga isbedelin ma bedelo. adinkan waxaa lidinka rabaa marka inaanan dardaar badan waqti lidinkaga luminin. waxaan rabnaa inay faraha hadlaan, waxaan rabnaa inay lugaha hadlaan, waxaan rabnaa cadowgu goob walba oo uu joogo inuusan nasan. walaalihiinna iyo dadka idinku tababarka ah oo idinku dareeska ah oo ku diriraayo hiiraan, oo ku diriraayo galgaduud, oo ku diriraayo shabeellada dhexe, waxaa lidinka rabaa inaad culayska ka fujisaan, culayska inaad ka leexisaan aa lidinka rabaa. shaqada koowaad oo idintaa la taas waa Khadar Iimaan Dhaqane.